nay oo xog waraysi ah oo ku saabsan xisaab xidhkii 2017 oo hadda guddida hor yaala kalfadhiga soo socda markuu furmana aan golaha horgeyn doono aan su'aalo ka weydiinaynay waqtigooda nasiyeen iyo kulanka naga soo qayb galeen waa ka mahadsan yihiin waxyaabo badan oo madmadow ku jiray ayaanu isla iftiiminay islana garanay wasiirka iyo tiimka la socda intaba in yar haddaan hoos ugu daadego waxaa ka mid ah in xukuumadda maanta joogta dayn dhan 80 milyan oo dollar ay kala wareegtay xukuumaddii hore oo laynoo sheegay siyaasiyan markii laga wada hadlayay xil wareejintii inaan wax daynahoo lagaga tegay ama xukuumadda hore ka tagtay aanay jirin dayntaana ay la ildaran tahay ama ay xukuumaddu culays badan ay ku hayso bixinteedu waxaa kaloo jira oon isla garanay inay jirto dhibaatooyin fara badan oo soo jireen ahaa ilaa iminkana aan xal loo helin loona baahan yahay in xal guud loo helo oo ay ka mid tahay 2%ka gobollada bariga mar kasta oo golaha la hor keeno miisaaniyadda waxaa lagu ansixiyaa iyadoo talooyin la raaciyey ilaa 2011kiiba ahaydna talooyinkaasi in la mashaariceeyo oo aanay 2%kana noqon wax si guud siyaasadun loogu bixiyo ama aan la garanayn ama meelaha kaba baxsanba gobolka lagu isticmaalo kharashka loo ururiyo 2%ka ee cashuurta ganacsatada alaabta dekedaha kala soo degaysa loo saaray in gobolada bariga horumarkooda laga qayb qaato waxa soo baxday in wasiirka hor dhignay oo aan cidnaba ka qarinaynin in masaajidka madaxtooyada ku yaala 2017kii laga dhisay gobolada bariga taasoo iyaduna disaster ah ama de waxa aan loo baahnayn ay tahay waxaan isla garanay wasaaradda iyo wasiirka iyo tiimka la socdaba inaanay dib u dhicin sanadada soo socda 19 sanadkan ku jiraa uu ka mid yahay 2%ka gobolada bariga inaan waxaan iyaga ahayn oo horumarkooda ahayn aan lagu isticmaali karin lana joojiyo qaladaadka sharci ee sidii miisaaniyadda golaha looga ansixiyey si aan hayn loo isticmaalayo